maanta magaalada sida tana oo qaaba kan u dhisan oo dadka magaaladii bartamaheedii bannaan yahay oo dhinacyada ay ka soo jeedaan sakadihii iyo dhismayaashii waa dhis laga heli maayo Soomaaliya qurux badan waxaan rajeynayaa hadday sii korto oo sii weynaatana qurux badan inay helayso oo ka sii badnaanayso waxaa marka aan idiin soo maray runtii horta marka hore inaan inshaalla ilaahay ka cabsan ilaahay ka cabsanno nebiga maxamedna ku salliyo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu inaga reebaan ka harno waxaynu ugu adjeelanaa fulino dariiqa mustaqiimkaan qabsanno aan iscusayno aan iskaraamayno aan isxaq dhowna darisna iyo qofba qofka kale si sharafteeda iyo maqaamkeedu u wanaagsanaado magaalada ta waa magaalo aan aqaan dadkeedana aan aqaan halkankii dheeraada aan soo maray oo taariikhda dheer qaatayna oo wiilkii ku dhashay ciidamiyey oo laga yaabo hadda uu higsanayo kii kaasu sii dhalay inuu ciidamiyo hadda la sugayana dadka qiimaha ugu ballaaran ka qaatay ayaad hayeen hawsha kale aan ugu sharaxa u ahay badbaadada iyo danta iyo sababixinta Puntland shacabkeeda waa difaaca dalka dadka iyo diinta muddada anaga halkaan waarintaan difaacaynay marxalado badan baa la soo maray marxaladaha la soo maray marka daba waxaan taagnaa meesha wax ka dhacayeen ayaan taagnaa hadday mid shaqo tahay hadday mid hawlgal tahay dagaal hadday mid markaa siyaasadeed tahay oo siyaasiyiinta wax muugeen mar walbana doorkayaan ka qaadanaya hadday yeeshee doorar badan oo aan fulin baa jira oo dadkii cid kastoo madax noqoto